amnigeennii aan rabnaa inaan la wareegno ubadkeennii aan rabnaa inaan waxbarasho siino ciidankeennii aan rabnaa inaan maxaan ku dib u dhisnoon xoojinoon taagno cadawiyada aan leenahay oo khawaarijta ugu weynta ugu horeysaan rabnaa inaan ka nimaado oo meel saarno intaasoo dhan waxa kaliya ku suurtageli karta waxa waaye inaan cashuurta bixinno nidaamka dowladnimada aan u hogaansano intaas markaan uga baxo waxaan rabaa inaan usoo laabto baryahan dadka Soomaaliyeed dhagahooda waxaa ku soo dhacayay arinta Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex taagan arintaas arrin nasiib darro ah waaye kuma faraxsanin inay dhacdana sax ma ahayn nasiib darro dowladda Itoobiya garaawshiyo waa laga waayay dadka Soomaaliyeed waa og yihiin caalamkuna waa og yahay 1960kii laga soo bilaabo ilaa iyo 1990kii Itoobiya annaga dhulku sheeganayna iyo dad Soomaaliyeed naga maqanaan lahayn dalka Soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa Itoobiya dadkaasaan xuquuqdooda iyo danahooda daba taagnayn muddadaas maanta waa nasiib darro Itoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay u soo noqotay tira cadaanka goosanaya maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arab waa intaas jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960kii dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtay leedahay cadaanka goosanaya horeyna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso Soomaaliyoon dawlad lahayn Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il degan ah ayaa diiday Itoobiya inay dhulkana qaadato badan xoog ku gaarto maanta badan xoog ku gaaraa waa dariim waa riyo aan rumoobeyn waana lagu soo tijaabiyay badeena horaana lagu soo tijaabiyay nalooga mana guuleysan tanna looga guuleysan maayo Soomaaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaal qaaradda Afrika dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay nalama khasbi karo dhulkeenna nalagama khasban karo waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan annaga raalli ka ahayn oo sida aan annaga u rabno aanan loo samaynayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn Itoobiya shalay qaanuunka international law-ga ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal wada hadal yarina wali way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu ku soo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoono Soomaaliya waxaa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ah difaacday shalay Itoobiya way diidaneed gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaa wali ma aqoonsana waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagna waa intaas inay diiday ilaa hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno wax kale oo ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu noo sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay walax annaga aan siyaasad ka dhex raadinayno siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga naloo doortay mas'uulna ka ah dowladeeda dhowr maraa sheegay shalayna kamaanan ogolaanin maantana kuwa kale yimid ka ogolaamayna kuwa biri imaad doonaan kuwa naga dambeeyana ma ogolaad doonaan siyaasad nagama aha daris naciib nagama aha xuquuqdeennoo ilaashanayna waay shaatigeena inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoono meel ka sii dambayso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dib kale iyo dood kale iyo dacwo kale qabno mala Soomaaliya ogaada colaad ma qabno diris xumeyn ma qabno dib kale ma qabno waxaasi si loo waxeeyo inta soo jar ayaa dawladda Itoobiya ay meelo badan naga xanta xananteynaysa inaan xanaaqno oo hindisno oo qaylino
oon caaytanno oon maxay ayadoo raadinayso maanaan samayn hal hadafaan leenahay halka hadafoon leenahay waxaa waaye gobonnimada madax bannaanida midnimada dal iyo dad ee Soomaaliya inaan la soo faragelinin taasaan ku taaganahay wada hadalladii waxaan rabaa inaan amaano walaalaheen Turkiga way ka shaqeeyeen way dadaaleen annaga xaggeena kama niyad jabin waxaa soo haray Soomaaliya dowladaha hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaanta dowladda Itoobiya intaas Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna ciddii aan danaheena ka soo horjeedana danaheedaan ka soo horjeesanaynaa maba shakina nooga ma jiro